السلام عليكم muuqaal kan waxa aynu kaga hadli doonaa haddii Allah awood leeyahay ogolaado xukunka dhagaysiga heesaha kamanka leh waxa aan u qeybiyay mowduucan laba qaybood iyo hordhac qaybta koobaad xukunka heesaha inaga oo soo qaadanayna ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam kuwaas oo ku cad xaaraantinimeynta heesaha muusiga wata qaybta labaad dhibka caafimaad ee uu leeyahay dhagaysiga muusigu ama heesaha muusiga iyo kamanka leh inaga oo ka soo xiganayna khubaro cilmiga caafimaadka ku leh baac dheer laguna qadariyo oo looga dambeeyo kana tirsan jaamacadaha ugu tayada badan ee caalamka ku yaala iyo cilmi baadhisyo lagu kalsoon yahay qaybtan waxa aan ka dhigay muuqaal kan hadda ku xiga insha Allah hordhac inta aynaan si toos ah u guda gelin mowduuca waxa aan baraarujinayaa ereyga hees si ahaantiisa uma aha wax dambi ah oo xaaraan ah hees waa bad ka mid ah badaha maansada suugaanta Soomaalida sida maanso masafo jiifto gabay geeraar buraanbur weligeena waxa aynu lahayn hees hawleedyo aynu qaadno sida heesta geela heesta waraabka heesta ariga heesta maqasha heesta caruurta iyo kuwa kale oo badan waxa heesta dhagaysigeeda iyo dhihideeda xaraam ka dhigaa waa laba kow in ay sheegayso oo tilmaamayso xubnaha labada jinsi ama mid ka mid ah ee ay ahayd in afka laga gaabsado iyadoo la edebsanayo laba in aanay erayada heestu wadan wax kaman ah ee ay yihiin codkii qofka qaadaya heesta yacni midhaha suugaaneed oo kali ah inta marka aynu isla garanay waxa aynu u gudbi doonaa tixidda axaadiista ku soo aroortay xaaraantimeynta dhagaysiga heesaha muusiga leh xadiiska koobaad waxa uu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa ummadayda ka mid noqon doona qaar banaysanaya sinada xariirta khamriga iyo muusiga xadiiska labaad isagana waxa uu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam laba cod waa ay nacladan yihiin adduunka iyo aakhiraba codka koobaad kaman la sameeyo marka nimco lagu jiro codka labaad qaylo la sameeyo marka ay musiibo dhacdo xadiiska saddexaad isagana rasuulku waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay waxa uu xaaraantimeeyay khamriga khamaarka muusiga qabiiraaga jaad ka mid ah khamriyada wax kasta oo sakhrad lehna waa xaraam waxa laga yaabaa in ay dadka qaar ku doodaan in ay sugan tahay durbaan la tuntay oo bannaan waxa ay hilmaameen in tumashada durbaanku ay ahayd mid u gaar ah haweenka caalimkii weynaa ee la oran jiray Xaliimi ayaa waxa uu yiri garaacidda durbaanku uma bannaana dumarka mooyee cid kale sida asalka ahna waxa weeye in uu shaqadooda ka mid yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam waxa uu lacnaday ragga dumarka isu eekaysiiya haddii Allah awood leh ogolaado waxa aynu soo duubi doonaa muuqaal aynu kaga hadlayno khatarta caafimaad ee muusiga inta aynu ku kulmano muuqaal kale oo xiiso badan waa Sakariya Haruuni oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh